muuqaalkan waxaan kugu tusi doonaa dhammaan feature-da EasyTouch uu leeyahay iyo waxa ay ka caawin karaan. Marka hore soo gal linkiga systemkaaga adiga oo isticmaalaya browserka aad rabto. Kadib fur akoonkaaga adiga oo gelinaya userkaaga iyo passwordkaaga. Haddii aadan haysan EasyTouch, soo qor EasyTouch si aan kuu tusno step by step sida aad ku heli karto systemka. Marka aad soo gasho akoonkaaga sida aad arkayso waxa ugu horeeya ku soo muuqan doona waa dashboardka oo aad ka heli doonto dhammaan feature-da EasyTouch oo dhameystiran. Overview chart qaybtan waxay muuqaal guud ah ka siinaysaa ganacsigaaga ayadoo qaab chart ahaan kugu soo muujinayso dhammaan saleeskii la sameeyay iyo lacagihii laga qabtay, expenses ka baxay iyo sidoo kale alaabaha aad soo iibsatay. dhammaan shaashadan ayay kaaga soo muuqan doonaan. qaybta ka hooseysa waxaa la dhahaa quick links. waxaa loogu talagalay inaad si fudud ku gaarto ama aad ku access gareyso feature-da ugu muhiimsan ee systemka sida products, sales, quotation, purchases, transfers, customers iyo wixii la mid ah. dhammaan qaybahan gadaal ayaa kaaga sharxi doonaa. Next waxaa ka hooseeya latest 5. halkan waxaa kaaga soo muuqanaya shantii dhaqdhaqaaq ugu dambeysay ganacsigaaga dhan waliba, sida shanta iibka ee ugu dambeysay ama shanta qiimeyn ee ugu dambeysay ama badeecada aad soo iibsatay, macaamiisha aad diiwaan gashatay iyo si la mid ah vendorka ugu dambeeya aad diiwaan gashatay. soo mid walba waxa uu ka tusaa shantii dhaqdhaqaaq ee ugu dambeysay. Best sellers qaybtan waxaa kala socon kartaa isbarbar dhig labadii bil ugu dambeysay alaabaha ugu badan ee laga iibsaday. dhanka bidix ee shaashada haddii aan eegno waxaad ka heli kartaa products. waa meesha aad ka ogaan karto wax walba oo la xiriira badeecada ganacsigaaga, sida list products oo aad ka arki karto dhammaan alaabta dukaankaaga. add product oo ah meesha aad alaabta cusub ka soo gelinayso systemka. quick add product feature-kan wuxuu ka caawinaa inaad si fudud alaab cusub systemka ku soo geliso meel walba aad systemka ka joogto. import product waxa uu ka caawinaa in alaab badan oo Excel file kugu diyaarsan inaad hal mar soo geliso systemka. mar waliba xusuusnow saddexdan wado ayaa systemka alaab soo gelin kartaa: add product iyo quick add product. waxa ay ku kala duwan yihiin. add product marka la joogo waxaad ku diiwaan gashan kartaa product iyo materials uu ka kooban yahay, ama waxaad ku diiwaan gashan kartaa service aad bixiso. halka quick add product marka aad joogto kaliya waxaad soo gelin kartaa productyada standardka ah, ama waxaad isticmaalaysaa mararka qaar aad purchase sameynayso. print barcode label waxa uu ka caawinayaa in alaabahaada aad u daabacdo barcode sticker kuu gaar ah. quantity adjustment waxaa loo isticmaalaa in lagu saxo tirada alaabta ku taala dukaankaaga. tusaale ahaan dukaankaaga waxaa ku yaala 7 koob, laakiin systemku waxa uu kuu sheegay in 9 koob ay ku yaalaan. adjustment ayaa loo isticmaalaa ama ka caawinaya in aad ku saxdo tirada alaabta ku taala dukaankaaga. stock count waxaad isticmaalaysaa marka aad rabto inaad xisaabiso dhammaan badeecada ku taala dukaankaaga si aad isku waafajiso tirada ku taala systemka iyo tirada dukaanka ku taala. inventory management system IMS waa feature more advanced ah oo loogu talagalay in xarumo badan ama qaybo kala duwan isla markaana hal meel alaabtooda laga supply gareeyo, sida dhowr coffee shop oo leh hal jiko, ama dhowr dukaamood oo leh hal baqaar, ama xitaa maqaayad weyn oo leh dhowr qaybood laakiin hal store uu ka dhaxeeyo. feature-kan waxa uu ka caawinaa inaad si dhow ula socoto waxa ka baxa baqaarkaaga. waxaadna ka heli kartaa feature-dan sida orders. waxaad u isticmaalaysaa adigoo branch jooga inaad branch kale wax ka dalbato. my orders waa meesha aad ka ogaanayso haddii dalabkaaga la aqbalay oo la soo dhiibay ama la kansalay iyo wax kastoo transfer lagu sameeyay. mark in mark out feature-kan asigana waa adjustment. waxaa lagu saxaa alaabta soo gasha dukaanka iyo wixii ka baxay oo ah khaladaad ka dhacay quantity-ga. requested order waa meesha aad ka approve gareynayso alaabtaaga soo dalbaday. bookings waxaa loogu talagalay inay isticmaalaan dadka bixiya service-ka booking-ka sida hoteelada hoolasha kireeyo. waxaadna ka heli kartaa feature-dan. calendar waa meesha aad ka ogaanayso booking status-ka haddii lagu jiro hoolka iyo haddii uu bannaan yahay. list bookings waxaa ka soo muuqan doono inta booking la sameeyay, cidda loo sameeyay, taariikhda la sameeyay iyo payment-ga cidda ay ku taagan tahay. systemka waxa kale uu leeyahay subscription. waxa uu ku ogolaanayaa inaad si bil ah service u kareyso. waxa kale uu ka caawinayaa in fariin uu u diro dadka expire date-kooda la gaaray. sales waa meesha aad ka ogaa karto wax walba oo la xiriira saleska ganacsigaaga, waxaana ugu muhiimsan add sale oo ah meesha aad sale cusub ka samayn karto, iyo list sales oo ah meesha aad ka arkayso inta sales aad samaysay. section-kan sidoo kale waxa uu leeyahay meel aad kala soconayso deliveries,
subscriptions iyo gift cards. 5 barges waxa uu leeyahay ad barges oo ah meesha aad ka diiwaangelinayso waxyaabaha aad soo iibsatay, iyo list barges oo ah meesha aad ka helayso listiga boonooyinka alaabihii hore aad u soo iibsatay. 6 transfer sectionkan asigana waxa uu leeyahay ad transfer. waxaa loo isticmaalaa marka aad rabto alaab branch 1 ku taalo inaad u wareejiso branch kale, ama alaab baqaar ku taala inaad wareejiso dukaankaaga. iyo list transfer oo aad ka heli karto dhammaan dhaqdhaqaaqadii aad samaysay. 7 quotation waxaad ka helaysaa labadan feature. ad quotation oo loo isticmaalo in lagu diyaariyo qiimeynta. tusaale ahaan macaamiil ayaa wuxuu rabaa inaad u samayso warqad qiimeyn oo ay ku caddahay waxa aad ka iibin doonto iyo qiimaha aad kaga iibinayso. iyo list quotation waxaa ka soo muuqanaya dhammaan qiimeynta aad hore u soo samaysay. 8 people qaybtan waxaa la isticmaalaa marka aad qof diiwaan gashanayso. customers waxaad ku diiwaan gashanaysaa macaamiishaada. vendors waxaad ku diiwaan gashanaysaa dadka adiga customerka u tahay ama macaamiisha u tahay oo aad ka soo adeegato badeecada. users halkan waxaad ka diiwaan gashan kartaa userska systemka isticmaali doona. iyo biller waxaad ka diiwaan gashan kartaa kaashiyerada. human resource management HRM waa meesha aad ka heli doonto xog waliba oo ku saabsan shaqaalahaaga. sectionkan waxa uu leeyahay features badan sida employees waxaad ku diiwaan gashan kartaa shaqaalahaaga. department waxaad ku diiwaan gashan kartaa waaxaha ganacsigaaga. work shift waxaad ku diiwaan gashanaysaa shiftiyada shaqada, xilliga la soo galayo iyo xilliga laga baxayo. shift category waxaad ku diiwaan gashanaysaa dhammaan qaybaha kala duwan ee shiftiyada haddii ay kala yihiin day shift iyo night shift. leave waxaad ku diiwaan gashanaysaa fasaxyada tiimkaaga ee qaateen. fine waxaad ku diiwaan gashanaysaa ganaaxyada shaqaalahaaga aad ganaaxdo. holidays waxaad ku diiwaan gashanaysaa fasaxyada maalmaha caalamiga ah sida ciidaha iyo maalmaha la mid ah. attendance waxaa si manual ahaan ugu diiwaan gelinaysaa waqtiyada ay soo xaadiraan shaqaalaha, waa haddii aysan cilad ka jirin systemka xaadirinta ee suulka. attendance report oo aad ka heli karto shaqaalo walba imaanshihiisa iyo maqnaanshihiisa. accounting sectionkan waxaa loo isticmaalaa wax walba oo la xiriira xisaabaadka. waxaa kaloo ka heli kartaa fiicharadan sida customers waa meesha aad ka helayso xisaab walba oo adiga iyo customerkaaga idinka dhexayso. vendors waa meesha aad ka helayso xisaab walba oo adiga iyo supplierkaaga idinka dhexayso. employee waa meesha aad ka helayso xisaab waliba oo adiga iyo shaqaalahaaga idinka dhexeeyo, sida mushaaraadka la hormariyay iyo ganaaxyada laga jartay shaqaalaha iyo sidoo kale deymaha lagu leeyahay shaqaalaha. accounts waxaa ka helaysaa dhammaan akoonada systemka kugu abuuran iyo balansigooda. journal entries waxaa si fiican u fahmi kara dadka xisaabiyeyaasha. waxaa halkan laga sameeyaa dhammaan accounting transactionska, waxaadna u isticmaali kartaa xisaab xir iyo dalacaada lacagaha iyo transaction walba oo double entry accounting ah. general journal waxaa halkan kaaga soo muuqanaya dhammaan accounting transactionskii aad hore u samaysay. expenses waa feature aad loo fududeeyay, waxaa loo isticmaalaa in lagu diiwaangeliyo wixii expenses ama qarashaad ah ee kaa baxa. transfer waxaad u isticmaali kartaa inaad 2 akoon lacag u kala wareejiso. tusaale Salaam Bank ayaa lacag ku taala, waxaad rabtaa inaad u wareejiso Premier Bank ama cagsiga. mar walba xusuusnow systemku waxa uu leeyahay 2 qaybood oo transfer ah. midka koowaad waxaa loo isticmaalaa marka aad alaab u kala wareejinayso 2 xarumood. midka labaadna waxaa loo isticmaalaa marka 2 akoon aad lacag u kala wareejinayso. 11 messages qaybtan waa qaybta aad macaamiishaada fariimaha ugu dirayso manually ama automatically. send waa meesha si manual ahaan aad macaamiishaada fariimaha ugu dirayso sida diskoonada iyo ogeysiisyada. send log waa meesha aad kala socon lahayd fariimaha aad macaamiishaada u dirtay, waana meesha aad ka dooran lahayd qaabka fariinta aad macaamiishaada ugu dirayso haddii ay noqoto WhatsApp ama SMS-ka caadiga. 12 reports waa meesha aad ka ogaa karto warbixin waliba ama dhaqdhaqaaq waliba oo systemka gudihiisa ka dhacay, hadday ahaan lahaayeen saliska, deymaha, badeecada ku taala, xisaabaadka iyo shaqaalahaaga waxqabadkooda guud ah. xitaa waxaad ka heli kartaa goobaha systemkaaga laga soo galay. 13 settings waa meesha aad ka saxayso systemka iyo featuradiisa. inta badan waxaa loo baahdaa marka ugu horeyso ee systemka la setup gareynayo ama marka aad wax ka bedelayso. aan u soo laaban qaybta kore ee dashboardka. qaybtan waxaa si fudud la iskugu dhahaa top bar. waxaadna ka heli kartaa featuradan. screen panel oo ah halka laga soo muujiyo shaashada loogu talagalay macaamiisha. feedback oo ah halka feedbackiina aad inoogu soo gudbin karto. settings, calculator, calendar, languages.
iyo alerts oo ah meesha ay kaaga soo muuqanayaan notificationska tusaale haddii alaab ay kaa dhamaato. POS waa meesha ugu badan ay shaqaalaha isticmaali doonaan. waa future lagu soo koobay qaybaha sida maalinlaha ah loo isticmaalo una diyaarsan qaab aad u fudud oo qof walba isticmaali karo. Today's Profit waxaa si fudud uga arki kartaa faa'iidada maanta aad samaysay asigoo ku xisaabin doona saleska aad samaysay oo laga jaray qarashaadka kaa baxay. Quick Sell halkan waxaad ka heli kartaa warbixin dhinac walba taabanayso oo ku saabsan saleskaaga. Transferkan waa midka lacagaha lagu kala wareejinayo. List Open Registers waxaad ka helaysaa shiftiyada furan iyo macluumaadkooda. iyo Clear Saved Data. Featureska EasyTouch intaan kuma eka. Kaliya waa featureska inta badan ganacsiyada ay wadaagaan. Muuqaalkan hadafkiisa ayaa wuxuu ahaa in aan fahan guud ah kaa siiyo haddii aad EasyTouch iibsato waxa aad ka heli doonto. waxaa jiro features badan si gaar ah loogu talagalay ganacsiyo gaar sida maqaayadaha, goobaha entertainment-yada, kuwa loogu talagalay gymka iyo kuwa kale oo badan. mar walba xusuusnaaw goobaha aad ugu jeceshahay magaalka waxa ay ku shaqeeyaan EasyTouch. waxa ay doorteen hufnaan iyo habsami u shaqeyn. adigana haddii aad danaynayso in wax badan aad ka ogaato EasyTouch muxuu yahay iyo sidee ayuu ganacsigaagu caawin karaa, nambarada profile-ka saaran nagala soo xiriir ama nagu soo booqo xafiiskeena Villa Beria, degmada Waaberi, magaalada Muqdisho ee Soomaaliya. ku mahadsanid waqtigaaga. Yoltech u helan macaamiisheeda